kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka oo toddobada bisha 12aad sanada 2025 qodobada ugu waaweyn oo wararka aanu xilligan idin haynana waxa kamid ah dawladda federaalka oo ka shiftay xiriir shacabka laga qariyay oo si hoose kala dhaxeeya Soomaaliland cabsi aan horay loo arag oo soo wajahday Soomaalida Minnesota dadka sabiid iyo caanole oo xaalad adag dhaxda kaga jira dawladda Soomaaliya oo cadeysay mowqifkeeda ku saabsan khilaafka saaraha galbeed ee Afrika iyo haweeney guursatay meydka saaxiibkeed kadib markii loo dilay arrimo la xiriir quursi intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka channelka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtay channelkan kusoo biro subscribe sar muuqaalkana like sar share garee oo la wadaag saaxiibada waxaad haatan kusoo dhawaataan faahfaahinta qodobadii aan idiin soo sheegay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka shiftay xiriir joogto ah oo si hoose kala dhaxeeya Soomaaliland wasiir dawlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Ali Umar Balcad ayaa sheegay in dawladda federaalka ay si dhow ula shaqeyso Soomaaliland isagoo tilmaamay in labada dhinac ay yeeshaan xiriir toos ah oo joogto ah wasiirku waxa uu cadeeyay in Soomaaliland ay wili kamid tahay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayna socdaan dadaal diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in xal waara looga gaaro arrimaha u dhaxeeya labada dhinac isagoo ka hadlayay waraysi uu siiyay Dooxa News Ali Umar Balcad waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay wada hadal iyo in la helo hanaan siyaasadeed oo mideeya aragtida shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxa uu intaas ku daray in xiriirka dawladda federaalka iyo Soomaaliland uu yahay mid si toos ah u socda oo ku dhisan isfaham iyo wada shaqayn wasiir dawluhu waxa uu rajo ka muujiyay in xalka ku saabsan arrimaha Soomaaliland la heli doono waqtiga ku haboon isagoo ku celiyay in Soomaaliya ay diyaar u tahay wada hadal kasta oo horseedi kara nabad iyo midnimo qaran waxaan rajaynaynaa inaan gaari doono heshiis waqti dhowna la heli doono xal siyaasadeed ayuu yiri Ali Umar Balcad sidoo kale waxa uu ka hadlay muhiimadda istiraatiijiga ee gobolka Geeska Afrika gaar ahaan marinka badda ee gacanka cadmeed iyo badda cas waxa uu xusay in muhiimadda gobolka uu aad u kordhay tan iyo markii la sameeyay kanaalka Suez oo noqday jid muhiim u ah ganacsiga caalamiga wasiirku waxa uu tilmaamay muhiimadda Soomaaliya ee ku aadan ganacsiga iyo istiraatiijiyadda badda isagoo xusay in sanadkii 1884 oo ah xilligii Afrika la kala qaybsaday Soomaaliya loo kala qaybiyay 5 qaybood sabab la xiriira muhiimadda juqraafiyeed ay leedahay wasiirku waxa uu sheegay in xaaladda amni iyo siyaasadeed ee gobolka ay saameyn ku yeelan karto ganacsiga caalamiga iyo xasiloonida gobolka Soomaaliyana ay ku jirto meel dhexe oo muhiim ah geesta kalena cabsi aan horay loo arkin ayaa soo wajahday Soomaalida Minnesota kadib markii madaxweyne Donald Trump uu maalmihii la soo dhaafay xoojiyay weerarada afka ee ka dhanka Soomaalida Mareykanka saraakiisha socdaalka Mareykanka iyo ilaalinta kastamyada ayaa ku badanaya gobolka Minnesota oo ah gobolka ay ugu badan yihiin Soomaalida Mareykanka ciidamada ICE ayaa sameynaya olole bartilmaameed oo ka dhan Soomaalida si loo tarxiilo kuwooda aan sharciga haysan waxaanay tani qayb ka tahay amar uu madaxweynuhu ku bixiyay in la masaafurin karo madaxweynaha ayaa soo galootiga Soomaalida ku tilmaamay erayo aan fiicnayn isagoo ku dhaleeceeyay inay yihiin dad aan waxba qabsan karin balse kaliya caabanaya isla markaana aanay waxba ku soo kordhin dalka Mareykanka aan ka ahayn inay dambiyo ka geystaan madaxweynaha ayaa si cad u sheegay inaysan Soomaalida u doonayn inay sii joogaan dalkiisa warbaahinta Mareykanka ayaa ku waramaysa in maamulka Trump uu ciidamada ICE ku amray inay beegsadaan Soomaalida aan haysan sharciga deganaanshaha ee dalkaasi si loogu celiyo Soomaaliya hase yeeshee ciidamadan ayaa cabsi badan ka abuuray magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis iyo St. Paul kadib markii si aan kala sooc lahayn ay ula dhaqmeen Soomaalida sharciga leh iyo kuwa bilaa sharciga duqa magaalada Minneapolis Jacob iyo dhigiisa St. Paul Melvin ayaa markii horeysay ka digay in ciidamadaas ay hadaf ka dhigtaan Soomaalida muwaadiniinta Mareykanka iyo inay si qaldan u celiyaan Jacob waxa uu sheegay in inta badan Soomaalida Minnesota ay yihiin muwaadiniin Mareykan isagoo xusay in ka badan 80,000 oo Soomaaliya ay ku nool yihiin gobolka ayna intooda badan yihiin kuwa leh dukumeentiyo sharciya
Jacob iyo Melvin ayaa wacad ku maray inaysan la shaqayn doonin ciidamada IS sababtuna ay tahay inay si gaar ah duulaan ugu yihiin bulsho gaar ah. Soomaalida Minnesota ayaa ka dhigtay dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan hadallada cunsuriyadda leh ee Trump uu kula kacay dad cadaan ah oo ay ku jiraan dadka u ololaya soo galootiga ayaa sidoo kale Minnesota ka dhigay banaanbaxyo lagu diidan yahay howlgalka lagu raafayo Soomaalida. Inta badan Soomaalida ku nool Mareykanka ay ku jiraan kuwa Minnesota ayaa ah muwaadiniin marka loo eego qiyaasaha sahanka bulshada Mareykanka sida lagu sheegay sahan uu sameeyay xafiiska tirakoobka. ciidamada IS ayaa toddobaadkan xiray 12 qof oo 5 Soomaali ay tahay sida ay sheegtay waaxda arrimaha gudaha Mareykanka. Soomaalidan la soo qabtay iyo kuwa kale oo la soo xiri doono ayaa loo diyaarinayaa in lagu celiyo Soomaaliya. Dhaqdhaqaaqyada sii kordhaya ee ciidamada IS ay ka wadaan Minnesota ayaa cabsi iyo xiisadba ka horiyay gobolka. wararku waxay intaas ku darayaan inuu aad u yaraaday isku socodka Soomaalida ee labada magaalo ee Minneapolis iyo St. Paul oo hooy u ah Soomaalida ugu badan ee dalkaasi ku nool. suuqa ganacsiga ee Carmel Mall oo ah xarun ganacsi oo Soomaalidu ay ku badan tahay kuna yaala Minneapolis ayaa waxaa si weyn hoos ugu dhacay isku imaatinadii Soomaalida ee ka jiray. ololaha musaafuriinta ee bishan December ka bilowday gobolka Minnesota ayaa dadka Soomaaliyeed ku riixay inay isqariyaan qaarkoodna ay feejignaan dheeri ah muujiyaan iyadoo kuwooda suuqyada ka soo dukaamaysanaya ay horay u sii qaadanayaan sharciyadooda cabsi laga qabo in ciidamadu ay sirnacayb ku kacaan. bulshada Soomaaliyeed ee degan Minnesota ayaa waxay xaaladan soo korortay u aragtaa dagaal toos ah oo lagu soo qaaday. dadka Soomaaliyeed ayaa tobanankii sano ee u dambeysay saameyn waxay ku yeelanayeen gobolka iyadoona gabadha lagu magacaabo Ilhaan Cumar ay tahay xubinta ugu caansan. xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa ka tirsan Koongareeska Mareykanka waxaana laga soo doortaa gobolkaasi. Trump oo ah nin aan qarsan nacaybka uu qabo Ilhaan Cumar oo ah xubin ka tirsan xisbiga dimuqraadiga Mareykanka ayaa u muuqda mid caaradiisa kala duldhacaya Soomaalida. geesta kalena dadka Sabiid iyo Caanoole ayaa xaalad adag dhexda kaga jira. militariga Soomaaliya ayaa deeq gargaar ah waxay gaarsiiyeen dadka reer Sabiid iyo Caanoole ee gobolka Shabeellaha Hoose xilli dadka deegaanku ay ka cabanayaan wax la'aan waana xilli xariga laga jaray buundada Sabiid iyo Caanoole kadib markii dib u dhis lagu sameeyay. buundadan oo muhiim u ahayd isku socodka bulshada deegaanka iyo marinada ganacsiga ee gobolka ayaa waxaa bishii Juun burburisay Al-Shabaab iyadoo uu socday howlgal xilligaasi dib maleeshiyadeeda looga saaray deegaankaasi. hoggaanka isku xirka ciidanka xoogga dalka iyo shacabka ayaa deeqdan oo isugu jirta raashin iyo marakaneecooyin gaarsiiyay dadka deegaanka kuwaasoo intooda badan barakac kaga maqan guryahooda. dadkan oo hadda ku nool tuulooyin ku dhow Sabiid iyo Caanoole ayaa ku soo laabtay deegaanka kadib markii lagu wargeliyay in deeq gargaar loo sido. madaxa hoggaanka isku xirka ciidanka xoogga dalka iyo shacabka Iimaan Maxamuud Cali iyo xubnaha kale ee kala shaqeeya gargaar bixinta ayaa deeqdan si siman ugu qaybiyay dadka oo si weyn ugu baahi qabay. wasiirka gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi, wasiirka arrimaha gudaha Cali Yuusuf Cali Xoosh, taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Jenaraal Sahal Cabdullaahi Cumar iyo saraakiil ka tirsan militariga Turkiga ee xirada Turkisom ayaa goobjoog ka ahaa goobta dadkan deeqda lagu siinayay. dadka deegaanka kuwooda qaba xaaladaha caafimaadka ee sidoo kale waxaa daweyn loogu sameeyay deegaankaasi. dadka reer Sabiid iyo Caanoole ayaa codsaday kaalmo dheeriya haddii aysan deeqdan dabooli karin baahiyahooda balse ay u noqonayso dhiig joojin. dadka deegaanka ayaa waxay kale oo codsadeen in dib u dhis loogu sameeyo guryahooda. shabaabka oo 15 Maarso dagaal ku qabsaday deegaankaas ayaa lagu eedeeyay inay bartamihii sanadkan burburiyeen guryihii shacabka ahaa isla markaana ay dadkii deegaanka ku amreen inay si dhaqso halkaas uga baxaan kadib markay xaqiiqsadeen in ay lumin rabaan gacan ku haynta deegaanka. ciidamada xoogga dalka oo gacan ka helaya militariga Uganda ee qaybta ka howlgalka AUSOM ayaa bishii Juun weerar ballaaran waxay ku qaadeen maleeshiyadii ku sugnay deegaankaasi iyagoo ku guuleystay inay ka saaraan waana markaas marka shabaabku ay bilaabeen inay qarax ku burburiyaan buundadii Sabiid iyo Caanoole iyo inay dhulka la simaan guryihii la deganaa. dadka deegaanka qaarkood ayaa ku cawday in shabaabku ay guryahoodu ka samaysteen dhufaysyo iyo gabaad ay kaga gaashaantaan gulufkii ballaarnaa ee xilligaas lagu soo qaaday.
jenaraal sahal cabdulaahi cumar taliyaha ciidanka dhulka oo ka hor hadlay dadka deegaanka ee deeqda la gaarsiiyey ayaa sheegay in mas-uuliyiinta ka socota dowladda federaalka ay ugu yimaadeen inay la qaybsadaan dhibaatada ay wajahayaan. wasiirka arrimaha gudaha cali xoosh oo intaas kadib hadalka qaatay ayaa sheegay in dowladda ay garab taagan tahay wixii karaankeeda ahna ee la awoodo aysan ka hakran doonin. wasiir xoosh waxa uu xusay in wasaaraddiisu ay u soo diri doonto koox qiimaysa intay la eg tahay dhibaatada ka jirta deegaanka si wixii laga qaban karo falkeeda loogu dhaqaaqo. wasiir axmed macalin fiqi oo isna u laab qaboojinaya dadka deegaanka islamarkaana garab istaag u muujiyey ayaa yidhi dowladda Soomaaliya way idinla joogaan mas-uuliyiinteeda waxay idinkula joogaan wixii ay shabaab idin yeeleen inay idinka dhaqaan oo yidhi. fiqi ayaa hadalkiisa ku xoojiyey wasiirka arrimaha gudaha guddi buu soo diri doonaa wixii ay shabaab burburiyeen iyo dhulkii ay qodeen oo dhan in la aaso. duruufta nololeed ee ka jirta deegaankan burburinta guryihii la deganaa iyo in shabaabku ay meesha ka saareen adeegyadii bulshada ee deegaanka ayaan dadka deegaanka u saamaxayn in noloshooda ay sii wataan. wasiirka difaaca axmed macalin fiqi ayaa shabaab ku eedeeyey inay diin sheeganayaan haddana ay u daran yihiin nolosha dadka iyo diintaba. ballanqaadkan ay wasiirada ka tirsan dowladda federaalku sameeyeen ayaa rajo badan gelinaya dadka deegaankan. dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa caddeysay mowqifkeeda ku saabsan muranka saxaraha galbeed ee Afrika. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa caddeysay mowqifkeeda rasmiga ah ee ku saabsan muranka dhulka saxaraha galbeed kadib markii warbaahinta qaarkood ay baahiyeen warar sheegaya in Soomaaliya ay dhulkaas u aqoonsatay inuu ka tirsan yahay dhulweynaha Morocco. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in Soomaaliya ay si rasmi u tixgelinayso qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee tirsigiisu u yahay 2797 kaas oo door muhiim ah ka ciyaaraya taageeridda geedi socodka nabadeed ee qaramada midoobay ay hogaaminayso ee dhulka saxaraha galbeed. wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya waxay caddeysay in mowqifka Soomaaliya lagu ogaan karo bayaanada iyo warqadaha rasmiga ah ay soo saarto. Soomaaliya waxay ku boorisay labada dhinac ee isku haya saxaraha galbeed inay galaan wada hadal toosa oo dhaba si loo gaaro xal nabadeed oo kama dambaysa kana turjumaya rabitaanka dadka gobolka islamarkaana waafaqsan qaraarada quseeya ee qaramada midoobay. sidoo kale Soomaaliya waxay muujisay taageero buuxda ay u hayso dadaalada xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo ergeygiisa gaarka ah ee dib u bilaabidda geedi socodka siyaasadeed. Soomaaliya waxay sheegtay inay ka go'an tahay xoojinta wada shaqaynta ay la leedahay boqortooyada Morocco iyadoo la ilaalinayo ixtiraamka wadajirka ee midnimada dhuleed iyo madaxbannaanida labada dal. dhamaadkii bishii November warbaahin laga leeyahay Morocco ayaa qortay in Soomaaliya ay dib u xaqiijisay taageeridda ay u hayso madaxbannaanida Morocco ee goboladeeda koonfureed ee saxaraha galbeed. warbaahintan waxay soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Cabdi Cali kaas oo ay sheegeen in mowqifkan uu ku muujiyay kulan uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Morocco Naasir. kulankaas oo ka dhacay magaalada Rabaad isagoo mar kale adkeeyay taageeridda joogtada ee Soomaaliya ee xuduudaha dhuleed ee Morocco. saxaraha galbeed waa gobol ku yaala waqooyi galbeed ee Afrika kaasoo taariikh ahaan loo arko inuu yahay dhul lagu muransan yahay. waxa uu xuduud la leeyahay Morocco, Algeria iyo Mauritania. dhulkaasi waxaa isku haysta Morocco oo aaminsan in saxaraha galbeed uu yahay qayb ka mid ah dhulkeeda islamarkaana maamusha inta badan dhulka iyo magaalooyinka waaweyn iyo xisbiga Polisario iyo jamhuuriyadda saxaraha galbeed ee Sadar oo ah dhaqdhaqaaq ka soo jeeda dadka Sahraawiga ee u ololeeya madaxbannaanida iyo dowlad madax bannaan. weli saaxiibayaal waxaad nagala socotaan channelka dabagalka wararka. ugu dambeynna haweeney guursatay meydka saaxiibkeed kadib markii loo dilay arrimo la xiriira quursi. saaxiibkay waa uu guulaystay xitaa markii uu dhintay. waalidkayguna waa ay guuldareysteen xitaa markii ay dileen. sidaas waxaa tiri Caajal Mamidwaar oo 21 sano jira oo muujisay sida qotada dheer ay u jeclayd saaxiibkeed. gabadhan ayaa ku nool magaalada Andheri ee gobolka Maharashtra ee dalka Hindiya. Caajal ayaa go'aan ku gaartay xitaa markii la dilay inay guursato meydkiisa. dilka saaxiibkeed ayaa la sheegay inay ka dambeeyeen aabaheed iyo 2 la dhalatay. dilka ayaa gilgilay magaalada ay ku noolaayeen waxaanay dadka deegaanku muujiyeen sida ay kaga walaacsan yihiin dilka Suksham oo 20 sano jir ahaa.
lamaanahan oo kala jiray 20 iyo 21 sano ayaa waxaa ka dhaxeeyay xiriir jacayl 3 sano ee la soo dhaafay kadib markii la dilay Sukhsham. Aajal waxay go'aansatay inay joogto guriga Sukhsham. Muddadii ay joogtay ayaa halkaas waxaa lagu qabtay xaflad aroos ah sida dhaqanka guurka halkaas u yaala. qoyskayga waxay diideen xiriirka wiilka igala dhaxeeyay sababtuna waxay ahayd ay tiri inuu ka soo jeedo dabaqad kale. Aajal waxay warbaahintu u sheegtay in Sukhsham mar aan dhaweyn xabsiga laga soo daayay markaa kadibna ay hanjabaadyo kaga imaanayeen qoyskeeda. waxaa lagu eedeeyay qoyska Aajal xubno ka tirsan inay weerareen Sukhsham saacadu markay ahayd 5:45 galinka dambe ee Khamiistii. boolisku waxay sheegeen in Aajal aabaheed iyo walaalaheed ay toogteen Sukhsham kadibna ay si xun u tumeen ilaa uu ka dhinto. 2 saac ka hor intaan la dilin ay Aajal hooyadeed aaday guriga Sukhsham iyadoo u hanjabaysa. qoyska dhibanaha ayaa boolisku ku wargeliyay falka dilka. Aajal waxay warbaahintu u sheegtay inay si weyn isu jeclaadeen iyada iyo Sukhsham kadib markii xabsiga laga soo daayay. waxaanay sheegtay in xitaa iyada loo hanjabay. sidoo kale waxay tilmaamtay in loogu hanjabay daldalaad. Aajal waxaa kaloo ay shaaca ka qaaday in sababta dilka uu dhacay ay tahay arrin la xiriirta dabaqad iyo nacayb. kadib markii qoyska Sukhsham ay booliska dacwad u direen ayaa loo diiwaangeliyay kiiska faldila iyo jirdil oo ay geysteen 6 qof oo ku jiro aabaha dhalay Aajal. boolisku waxay sheegeen in dhammaan eedeysanayaasha lagu soo xiray 12 saacadood. Aajal hooyadeed aabaheed iyo walaalkeeda ayaa hadda xiran. warbaahintu waxay isku dayday inay hadal ka hesho qoyska la eedeeyay ama qareenkooda balse weli ma aysan hadlin. sida uu sheegay taliye ku-xigeenka booliska ee gobolka Shinde, kiiskan ayaa loo diiwaangeliyay fal dambiyeedyo kala duwan sida uu qabo xeerka ciqaabta dalka Hindiya. boolisku waxaa kaloo sheegeen in 6 qof ee looga shakisan yahay in dilka ay geysteen ay ku jiraan gacanta booliska. guud ahaan saaxiibayaal waa naga inta warka channelka dabagalka wararka. haddii aad ku cusubtahay channelkan kusoo biro subscribe sar muuqaalkana like sar share gare oo la wadaag saaxiibada. ad ku maasantahay inaad daawato warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono. nabaadiino noole kulante iyo maana Allah.